qaar ka mid ah dadweynaha iyo gaadiidleyda ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan iyo siday u arkaan taariikhda cusub ee ay samaysay xukuumadda madaxweyne Biixi. waa kuwan ayagoo ka waramaya bal siday u arkaan sumadan cusub ee gaadiidka Soomaaliland loo sameeyay, faa'iidada ay dalka u leedahay iyo welibana dhibaatooyinka ay ku keeni karto dabaqadaha kala duwan ee bulshada. dhalinyaradan haddii maanta la ilaa $60 keena halkee laga keenaya? waxa weeye ninkii haddii taariikhda loo bedelay la isku bedelay inay ayaa ficlaan lahayd. meel walba in mashruuc laga eega ma haddii wax walba la ilaa dawladda qabanaysa haddana mashruuc laga sameeyo waa qalad. markaan waxaan aaminsanahay in xukuumaddu dadka u bedesho taariikhda oo aanay lacag ku xidhin. taariikhda in la bedelaa way fiican tahay oo waxa weeye taariikhda way nagu raagtay, gawaadhina nambarkoodu waa farabateen. marka in loo sameeyo xagga hore xaraf laga raaciyaa sharciyan waa wax wanaagsan. laakiinse de waxaa jira caqabad baa jirta haddana oo marka koowaad lacagtan dadka laga qaadaya ee $60 marka koowaad miisaaniyaddii qaranka ee baarlamaanku ansixiyay kuma jirayso. awood uma leh wasiirku inuu budget intaa leeg waxa lacagta ka soo bixi doonta waa lacag lagu qiyaasayo lacag ku dhow ilaa $4 milyan haddaanay ka badnayn. lacagtaasi meel ay ku baxayso lama sheegin, mashruuc lagu qabanayo ma sheegin. gaadiidkii oo kala takooran oo waxaa la garanayaa gaarigan aad wadatid inaad gobol maroodi jeex ka kaxaysatay iyo inaad ka kaxaysatay laascaanood iyo inaad ka kaxaysatay togdheer. taasina waxaan u arkaa inay tahay qalad labaada meesha ku jira. sharci ahaan wasiirku uma laha inuu budgetka intaa leeg uu waraaqad yar ku saasixiyo oo aan golayaashii dadka iyo dadkan loo doortay aanay waxba ka ogeyn. dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu qeexayaa in luuqadda koowaad ee qarankani uu leeyahay ay tahay afka Soomaaliga, ta labaadna ay tahay Carabiga, ta Ingiliishtana loo isticmaali karo waxyaalaha looga maarmo. waxaa kaloo jirta taariikhdaasi waxay priority ku soo baxday waxa weeye waa English. waxaan leenahay si sharciyadan aad u waafaqdaan baarlamaanka geeya ansixiya taariikhdana isku bedel noo sameeya. waxa weeye number ba la bedelaya iyo waxana la bedelaya. horta waxa ka horeeya mar walba gawaadhida wax laga qaadaa cashuur, wadooyinna ma haystaan. markaad wadooyin samaysaan te numberka ka bedelo lacagta ku kordhiya. nimankii baabuurta diran jiray baabuurta soo dejin jiray dib u diran jiray te waxana lagu kordhiyay wasiirka maaliyaddu markiiba 40% cashuurtii waanu u dayno waanu u nacnayba markii $300 baabuurta ka helayna ama $200 ka helaynay 200 baa dawladdu qaadatay. waanu u nacnayba oo baabuurta dalkan isku iibsanaan dib u iibinaa. marka waxaanu haddana aragnay oo naloo sheegay dee la yidhi haddana lambarkii baa la bedelayaa, waxa la qaadaya haddana lacag intaa leeg. dee wuxuu maan aragnaa lacag urursiye horumarkii waddanka iyo utuliddii shacbiga midnaba annagu uma aragno. gaari waraadaan leeyahay sanad imika wuu yaallay, camal la'aan buu yaallay, meel allaala iyo meel aanu baxo waan garan waayey. kii meesha yaallay haddii laygu idhaado $60 haddana keenoo lambar cusub aan ku xidhno dee waxa weeye waa dulmi. dadkana waxa weeye waa in loo naxaa. waxa weeye go'aanka dawladdu qaadatay waa inay ka noqoto horta marka hore. annagu gaadiidley baan waxaan iskama xamilayno. waxa weeye dhibteedu way badan tahay, dhaqaalo looma hayo, waddanku waa bilaa camal. waxaa laga yaabaa inanka gaadhiga yare maanta jabayda iska watay ku ganacsanaya ee $50 hore ku soo qaatay haysta in la yiraahdo haddana $60 oo kala keen oo mukhaarishba ku hayno $60 lixda bilood loo qabtayba inaanay kaba goynba. sumadan cusub ay xukuumadda madaxweyne Biixi samaysay ayaa noqonaysa tallaabadii koowaad ee loo qaado dhanka sumadda gaadiidka tan iyo intii ay Soomaaliland jirtay. waxaanay dadweynahan ka hadlay badidoodu soo dhaweynayeen sumadan cusub ee gaadiidka Soomaaliland loo sameeyay. ase ahaatee waxay dhaliilayeen shuruudaha ku xidhan ee ay ka mid tahay labada lambar ee la isku bedelayo oo lacag loo asteeyay, iyo sidoo kale inay dastuurka Soomaaliland ka hor imanayso in taariikhadan ay ku qoran tahay luuqadda qalaad ee Ingiliishka isla markaana laga booday luuqaddii Soomaaliga ahayd iyo Carabigaba. Cali Fahad Maxamed, Telefishinka Saab, Hargeysa.